waxaa ii sharaf ah inaan dhammaan supportiga community-geena boqolkiiba boqol aan haysano eedayaashay walaalayaashay saaxiibaday gabdhahan dhammaantood halkaan ka soo wada qayb galay. Sayid Axmed waxa uu qayb ka ahaa Soomaali saddex ahayd oo ka tartamaysay dalka Canada doorashadii xalay soo gabagabowday oo ku guuleystay xisbiga liberaalka ee uu hogaaminayay Mark Carney. saddexdan musharax ayaa waxa ay kala ahaayeen Axmed Xuseen, Cumar Abubakar iyo Sayid Axmed. waxa ay u kala tartamayeen Axmed Xuseen oo markii afraad kursiga loo doortay waxa uu u tartamay xisbiga liberaalka, wasiir ayuuna muddo 10 sano ku dhow soo ahaa. Sayid Axmed oo u tartamaya xisbiga conservative-ka ee Edmonton Center waxa uu isku dayay markiisi koowaad inuu federaalka u tartamo, kaalinta labaad ayuuna ku dhammaaday. Cumar Abubakar oo u tartamaya xisbiga NDP kana tartamaya xaafadda Edmonton Northwest waxa uu galay kaalintii saddexaad isagoo markii koowaad ay ahayd inuu u tartamo kursi federaal ah. saddexdan musharax ee Soomaalida Canada waxay u kala guuleysteen sidii ay xisbiyadoodu u kala xoog bateen. xisbiga liberaalka ayaa ku guuleystay talada dalka, sida la adligeedna Axmed Xuseen ayaa markii afraad xisbigan la guuleystay xukuumadna wax ka soo dhisayo, halka Sayid Axmed uu ka mid ahaa xisbigii conservative-ka ee kaalinta labaad ee doorashada galay. isaguna xaafadii uu ka tartamay ee Edmonton Center waxa uu ka galay kaalinta labaad, halka Cumar Abubakar oo u tartamaya xisbiga NDP-da uu galay kaalinta saddexaad. marka loo fiiriyo dal ahaanna xisbigu waxa uu galay kaalinta saddexaad. hase ahaatee waxaa jira xisbi gooni-goosada oo ka tartama gobolka Quebec isla markaana aan gobolada kale tartan ka gelin, balse tira ahaan ka kuraas badnaa kana kuraas batay hadda xisbiga NDP-da. marka laga tago federaalka oo Axmed Xuseen uu haatan markii afraad xildhibaan ka noqday, wasiirna ka soo ahaa muddo 10 sano ku dhow, waxaa dalka Canada xildhibaano ka ah dhinaca gobolada Shariif Xaaji oo xisbiga NDP ee gobolka Alberta ah iyo Maxamed Firin oo xisbiga conservative-ka ee magaalada Toronto gobolka Ontario. Jaamac Farasle, Madasha Furan, magaalada Edmonton, dalka Canada.